shirkan ayaa waxa uu maanta ka furmay hotelka Sonesta ee magaalada Qaahira kaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka isboortiga ee dawladda Masar, gudoomiyaha kubadda kolayga adduunka iyo gudoomiyaha kubadda kolayga ee qaaradda Afrika iyo madax kale. Sidoo kale waxa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay Engineer Bana Ali oo ah xoghayaha suuqgeynta zoonka shanaad ee qaaradda Afrika isla markaana ah xubin ka mid ah bariga Afrika oo u matala dawladda Soomaaliya iyo 30 dawladood oo Afrikaan ah oo ka mid ahayd dawladda federaalka Soomaaliya oo ka socday xogayaha guud ee kubadda kolayga ee u qaabilsan Soomaaliya. Engineer Bana oo ka hadlay sababaha keenay in shirkani la qabto ayaa waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim shirka maanta wuxuu ku saabsanaa waa shirkii oo xiriirada kubadda kolayga qaaradda Afrika ama sida loo yaqaano FIBA Africa shirkaano ujeedadiisa ay ahayd in laga hadlo wax qabadkii 2 sano ugu dambeeyay ay soo mareen dhamaan maamulka qaaradda Afrika iyo wadamada ka kooban yahay waxaana ka soo qayb galay maanta xaadir ka ahaa 30 wadan oo ay Soomaaliya macnaha ku jirto xogayaha joogay shirkiina si aadi ayuu u furmay waxaan la soo bandhigay programka oo sanad ugu dambeeyay ama governance-ka FIBA Africa ee rabaan inay ku shaqeeyaan runtiin waa dareemi karnaa waxa lagu hadlayo oo ah isbedelka isboortiga qaaradda Afrika lagu hormariyo waxaa la soo bandhigay top ciyaarihii ka dhacay 2 sano ugu dambeeyay sanadkii hore runtii oo FIBA jirsatay konton guuradii oo ay runtii ay ahayd waxyaalo soo muujiyay xamaasad oo laga hadlay taariikhda oo maartay oo kooban marka shirka Britain si soconaya asagana Britain waxa jira workshop badan oo looga hadli doono horumarinta qaaradda Afrika. shirkan oo ahaa shirkii xiriirka kubadda kolayga ee FIBA Africa ayaa la filayaa in uu socdo 2 maalmood ma aha markii ugu horeysay oo uu ka qayb galo Bana shirkan oo kale iyadoo uu ka soo qayb galay shirar kale caalami ah balse shirkan ayaa ahaa mid ka duwan kuwii hore maadaama lagu soo daray nidaamyo cusub isla markaana uu ballan qaaday wasiirka isboortiga dalka Masar in uu siin doono dhul baaxad weyn leh kaas oo laga dhisi doono xafiis weyn lagu qabto shirarka isboortiga noocan oo kale ah. Abdulaziz Qasim, Universal TV, Qaahira.